السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن قياري waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe marba markay ka sii dambayso newsada iyo update-ka sidaas ayaa loo kala guriyaa waxaana ka dabageyn doonaa xaaladda bariga dhexe halka ay wax kala marayaan meeshii Tahraan ahayd weeraro aan kala joogsi lahayn ayaa iyaduna ku socda maanta lix duqeymo oo aan kala joogsi lahayn oo qayb ay ka yihiin diyaaradaha khaliijka carabta ayaa waxaa la soo warinayaa in ay duqeymo waali ah ka geysanayaan magaaladii Tahraan ahayd ee caasimadda dalkaasi Iran dhinaca kalena Mareykanka maanta waxa uu adeegsanayaa markaasi diyaaradaha xambaara hubka loo yaqaano B2 bomber waxaana lagu soo waramayaa in markaani laga soo ridi doono ciidamada markaasi buuraha saaran dhinaca kalena Spain oo markaani lagu soo waramayo in guud ahaanba Mareykanka ay ka diiday in gudaha Spain laga weeraro magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi Iran iyo sidoo kale Faransiiska madaxweynihii dalkii Faransiiska Emmanuel Macron ninkii ahaa mowqifkiisa waa cadeeyay waxa uuna haatan ku soo biiraya dagaalka bariga dhexe isagoo si cad u sheegay in maraakiib dagaal iyo ciidamo military uu u soo diri doono xaaladda bariga dhexe markaani si ay garab u siiyaan ayaa la leeyahay markaasi wadamada khaliijka carabta oo markaani meel cidla soo istaagay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo iyaguna maanta ay xaaladda ku xuntahay waxa rabaa marka abdeeyadii ugu dambeeyay ku saabsan arimaha ka soo cusbaanaaday gobolka inaan kula wadaago daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato fadlan YouTube-keena ku soo beer kamid noqo saaxiibada igu xiran oo markasta halkan aan kula wadaago abdeeyadii ugu dambeeyay ee markaasi dunida iyo sidoo kale daafadaheeda muuqaalkana like saar sina share garay wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faallada noogu reeb waad ku maasan tahay daawashada iyo sidoo kale jaanqaadka wararkeena mahadsanid daawade ayna ku bilowday magaaladii Tahraan ahayd duqeymo aan kala joogsi lahayn ayaa ku socdo waxaana lagu soo waramayaa in duqeymahaasi ay qayb ka yihiin diyaaradaha markaasi ay leeyihiin wadamada khaliijka carabta ee ugu horeeyaan Sacuudi Carabiya wadanka istaga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale markaani Qatar oo ahayd wadankii ugu horeeyay oo markaasi ka tirsan khaliijka carabta oo weerar baan ku qaaday magaalada Tahraan ee caasimadda dalkaasi Iran waxaana haatan lagu soo waramayaa in markaani wadamadaasi oo isgarabsanaya ama isbahaysanaya ay weerar dhanka cirka ah ku qaadeen magaalada markaasi Tahraan ee caasimadda dalkaasi Israa'iil waxaana lagu soo waramayaa in markaasi goobo waaweyn oo markaasi ku yaala magaalooyinkaasi ay burbur lixaad soo gaareen sidoo kalena ilaa iyo haatan si rasmi ah loo xaqiijiyo markaasi khasaaraha rasmiga ee markaasi ka dhashay weeraradii maanta ay geysteen diyaaradaha markaasi laga leeyahay khaliijka carabta oo markaasi mowqifkooda iyaguna ama hardankii ugu horeeyay markaasi ku soo qaaday magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi Israa'iil wadamada khaliijka carabta iyagu naf ayay isgeliyeen waana duulaankii ugu horeeyay ee markaasi ka dhan ah Iiraaniyiintu oo ay qaadayaan wadamo ka tirsan khaliijka carabta dhinaca kale saaxiibayaal qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya markaasi Mareykanka ayaa haatan lagu soo waramaya markaasi in uu adeegsanayo diyaaradaha markaasi xambaara hubka casriga ah ee kaasoo loo yaqaano B2 bomber waxaana markaasi sababta ugu weyn oo adeegsanayaan ay tahay ayaa lagu soo waramaya in markaasi buuraha laga soo saaro ciidamada Iiraaniyiinta oo markaasi ay iyagu filayaan ama ay tuhmayaan in gantaalada markaasi iyo sidoo kale dronesku ay ka soo dirayaan Mareykanka waxa haatan lagu soo waramayaa in duulaankii ugu horeeyay oo markaasi ku soo qaadayo Iiraaniyiinta waxa uu adeegsanaya ayaa la leeyahay markaasi diyaaradaha markaasi xambaara hubka markaasi noocyadiisa kala duwan ee casriga ah kaasi oo magaciisa loo soo gaabiyo B2 bomber Mareykanka waxa uu markaani cadeynaya markaasi weerarkii ugu horeysay in uu ka qaadayo Iiraaniyiinta maadaama weerarkan ama weeraradii ka horeeyay si cad uusan u shaacinin Mareykanka in uu markaani weerar uu ka geysto magaalada Tahraan ee markaasi caasimadda dalkaasi markaasi Iiraaniyiinta Iiraanna iyaduna markaasi aad ay ugu foojigan tahay markaasi wax kasta oo markaasi kaga yimaanaya markaasi Mareykanka iyo sidoo kale xulufadiisa markaasi Israa'iil Mareykanka haatan meel cidla ayuu soo istaagay wadamadii markaasi heshiiska militariga uu la galay markaasi oo khaliijka carabta ilaa iyo haatan waxa uu u qabalan yahay iyaguna naftii ugu horeysay ayay isgeliyeen caawa weerar aad u xoogan oo markaasi dhowr jiha ilaa iyo 6 jiho ayaa lagu soo waramayaa in iyaguna markaasi ay ku qaadeen magaalada Tahraan ee markaasi caasimadda dalkaasi Iran xabiyaal qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya wadankii Spain isaguna waxa uu cadeeyay mowqifkiisa ka dhanka ah dagaalka ka socda bariga dhexe dhexna
xaaladiisu allow sahla ayay noqotay marba marka kasii dambeysana markaani waxaa kusoo biiraya ayaa la leeyahay dowlado waaweyn oo markaasi ka tirsan ururka loo yaqaano nato markaasi power waana dhowr wadan oo markaasi ku heshiiyey ururkani loo yaqaano nato Spain ayaa haatan noqonaya markaasi dalkii ugu horeeyay ee markaasi ka diida Mareykanka in markaasi laga soo weeraro Iiraaniyiinta. Spain iyo sidoo kale Mareykanka iyaguna xaaladooda aad ayay u xumaanaysaa kadibna Mareykanka isaguna waxa uu ku dhawaaqay in guud ahaanba uu xiriirka u jiri doono Spain sidoo kalena waxa uu sheegay in markaani si cad uu markaasi ugu horyimaan doono dhanka iyo ganacsiga. Mareykanka xaaladda ayaa ku sii xumaanaysa kadib markii Spain ay diiday in saldhigyada waaweyn ee ku yaala markaasi Spain laga weeraro dalkaas iyo sidoo kale Iran. Mareykanka waxa uu rabaa markaani in haddii hawada uu markaasi Iiraaniyiintu uu weli weerar ba'an oo xushimaha uusan uga qaadin waxa uu rabaa in uu soo dhex maro Spainna sidaad ogtihiinba daawadayaal waxaa ku yaala saldhigyo waaweyn. Mareykankan waxa uu rabaa in saldhigyadaasi uu markaasi ka faa'iideysto sidoo kalena uu weeraro sidoo kalena dhanka dhulka uu markaasi ku qaado Iiraaniyiintana aad ay ugu fogajigan yihiin wax kasta oo markaasi Mareykanka uu rabo ama markaasi uu filayo in weerar uu kaga soo qaado markaasi dalka Spainna iyana guud ahaanba haatan waa ay diiday waxaana markaasi halkaasi kasii xumaaday xiriirka markaasi u dhexeeya Spain iyo sidoo kale Mareykanka. Qodobka ugu dambeeya ee markaasi qodobadeena ku saabsan arinka markaasi ka soo cusboonaaday bariga dhexe waxa uu noqonayaa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waa uu soo hadlay hadal la yaab leh oo markaasi dad badan ka yaabiyay ayuu ka dhawaajiyay madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu leeyahay markaani maraakiibta dagaalka oo laga leeyahay Faransiiska iyo sidoo kale ciidamo military ah waxay u ruqaansanayaan xaaladda bariga dhexe si ay xal waara ama sidoo kalena markaasi ay taageero ugu muujiyaan ayuu leeyahay wadamada khaliijka carabta oo haatan dhiiqadii ugu darneed dhexda ka taagan. Faransiiska waxa uu noqonayaa dalkii ugu horeeyay oo markaasi ka tirsan midowga Yurub oo markaasi gurmad u fidinaya wadamada khaliijka carabta waxa uuna filayaa in ciidamo iyo sidoo kale maraakiib dagaal oo markaasi la filayo in ay markaasi ku soo xirtaan xeebaha dalkaasi iyo sidoo kale khaliijka carabta waxaana lagu soo waramayaa in markaani madaxweynaha dalkaasi iyo Faransiiska Emmanuel Macron oo markaasi ka dhawaajiyay in aanan loo dulqaadan karin Iiraaniyiintu waxa ay ka sameynayaan gudaha sidoo kalena wadamada khaliijka carabta waxa uu sheegay in markaas had iyo jeer Faransiiska uu garab istaagan yahay wadamadan lagu magacaabo khaliijka carabta maadaama wadankii ama heshiiskii la galeen heshiiskii militariga Mareykanka ay la galeen isagoo xataa oo haatan dhiiqo uu dhexda ka taagan yahay. Mareykankana ilaa iyo haatan hal qodob oo markaasi ay ku heshiiyeen wadamadan lagu magacaabo khaliijka carabta ilaa iyo haatan ma uusan ku dhaqaaqin xaaladdu ayaa isagoo xitaa laftirkiisa ku xun Spaintii uu lahaa dhankan hoose ka weerarna xaaladdu aad ayay ugu adag tahay Mareykanka. Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka isagoona waxa uu rabaa markaani xulufo ama sidoo kale jabhado huweysan markaasi inuu ka abuuro gudaha dalkaasi Iiraaniyiinta markaasi si uu u xakameeyo ayaa la leeyahay markaasi dagaalada iyo sidoo kale weerarada ka dhanka Iiraaniyiintu ay ku qaadayaan khaliijka carabta Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka. Dhinaca kale haddii aynu eegno saaxiibayaal Dubai waxa maanta ka dhacay wax aan la dhihi karin duqeymo qunsuliyadii Mareykanka uu ku lahaa dabka ayaa la saaray guud ahaanba Iiraaniyiintu haatan waxay u soo jeesteen in qunsuliyadaha Mareykanka uu ku leeyahay khaliijka carabta ay dabkii ama sida dabasti oo kale ay dhulka ka dhigaan kadib markii saldhigyadii waaweynaa oo markaasi khaliijka carabta uu ku lahaa Mareykanka ay guud ahaanba saaxiibayaal iska soo afjareen. Intaas ayaan saaxiibayaal ku soo koobaynaa abdeedadii ugu dambeeyay ee markaasi ka taagan xaaladda bariga dhexe wixii ka soo kordho daqiiqadba daqiiqada ka dambayso halkan kala soco oo nagula saaxiib haddii aad ila soo gaartay dhammaadka qodobada waxaan mar labaad ka codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe saarto gambaleelka furo muuqaalkan like saar like-ta meel dheer ayay gaarsiisaa muuqaalka mahsanid daawade.